Waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa sheeko dhex martay laba saaxiibo ah. Sheekadaas oo ah break up ama kala tegitaan. Ninkii ayaa bilaabay oo yidhi saaxiib, waan ka tegay gabadhii aan wada soconay. Saaxiibkiis ayaa ku yidhi, maxaa dhacay oo aad uga tagtay? Ninkii ayaa yidhi, way iga badbadatay. Saaxiibkiis ayaa yidhi, oo maxaa hadalkaa kaa keensiinaya? oo maxaa khalad ah oo ay samaysay? Ninkii ayaa yidhi, mar walba waxa ay danaysaa wejigeeda iyo araggeeda ama muuqaalkeeda, waa isqurxisaa oo waqti dheer ayay ku qaadataa inay labisato, iskuma kalsoona. Saaxiibkiis ayaa yidhi, oo waxaad qalbigeeda u jabisay sababtoo ah waxay rabtay inaad aragto inaad haysato gabadha ugu quruxda badan adduunka. Waxay rabtay inay indhahaagu qabtaan iyada oo keliya. Ninkii ayaa yidhi, mar walba waa ay i soo wacdaa, waxayna i weydiisaa halka aan joogo, cidda aan la joogo. Mar walbana waxay dhahdaa, sigaar ha cabbin, khamrana ha cabbin. Saaxiibkiis ayaa yidhi, waxaad qalbigeeda u jabisay sababtoo ah way ay ku danaysaa oo mustaqbalkaaga ayay danaysaa. Aad ayay kuu danaysaa oo ay kuu jeceshahay. Cabsida ugu weyn ee qabtana waa in ay ku weydo. Ninkii ayaa yidhi, mar walba way oysaayo, waa sida carruurtii ayay u oysaa markaan wax ku dhaho. Waxba ma is adkayn karto, waa carruur. Saaxiibkiis ayaa ku yidhi, oo qalbigeeda waxaad u jabisay sababtoo ah dareen ayay kuu haysaa oo waxay doonaysaa inay maqasho adoo leh waa aan ku jeclahay. Ninkii ayaa yidhi, mar walba si fudud ayay u masiirtaa, gabdhaha kale lama hadli kari. Saaxiibkiis ayaa yidhi, oo qalbigeeda waxaad u jabisay, waxay doonaysay inaad iyada keli u ahaato. Waxay u malaynaysay inaad daacad u tahay, laakiin uma tihid. Been ayaad u sheegtay si ay hadhowna u ogaato. Mar walba waxay rabtay ninka ay jeceshahay inuu iyada keliya jeclaado. Ninkii ayaa isku dayay inuu hadlo, balse saaxiibkiis ayaa ku yidhi, waad ka tagtay sababtoo ah qof fiican weeye oo adiga kuu fiican, mar walba wax wanaagsan kuu rajaysa. Ninkii ayaa yidhi, qalbigeeda waxaan u jabiyey sababtoo ah ma ogi waxa dhacay iyo waxa igu dhacay toona. Saaxiibkiis ayaa ku yidhi, waxaad weyday qofkii kuu jeclaa si ka duwan dadka kale, maada aada doonaynin. Mararka qaar ma aragno waxa aan haysanno. Waxaan weynaa dahab annagoo aruursanayna dhagaxaan. Ka fikir, mararka qaar markay qofku uu kaa badbato, waxay micno ka tahay inuu kuu rajaynayo mustaqbal fiican iyo nolol wanaagsan. Like a Hellcat.